Gudoomiyaha Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Maxamuud Macalin Cabdullaahi ayaa maanta waxa uu deeq gargaar ah gaarsiiyay xarunta dhimirka ee Dr. Xabeeb ee magaalada Muqdisho. Deeqda oo gaaraysa ilaa 260 kartoon oo isugu jirta raashin noocyo kala duwan ah ayaa waxaa Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ay ugu talagashay in la siiyo dadka dhimirka ka xanuunsan ee lagu daryeelo xarunta Dr. Xabeeb. Maareeyaha Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka oo uu heliyo Gudoomiyaha Golaha Badbaado Bulsho ayaa gargaarka ku wareejiyay Dr. Xabeeb. Ugu horreyn, Gudoomiyaha Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ayaa ka warbixiyay deeqda ay maanta gaarsiiyeen isbitaalka Dr. Xabeeb. Waxaan rabaa inaan idin sheego waxaan idin keenay 262 kartoon oo runtii raashin isku jiro ku jiro oo walaalahayna Imaaraadka ay noogu tala galeen. kartoon kastaaba waxaa loogu tala galay hal family inuu mataqaanaa xoo isticmaalo oo muddo cayiman runtii tii ugu dambaysan qanmaysa Ilaahay idinkiis waana mataqaanaa xoo ahay leedin soo gaari doona shaqada aad haysaan aad iyo aadan ugu mahadsantiin. Dr. Xabeeb oo deeqda la wareegaya ayaa sheegay in gargaarka la soo gaarsiiyay xilli ku habboon. 34,000 oo bukaan oo laga kala keenay Soomaalida Kenya, Soomaalida Ethiopia, Soomaaliya oo dhan, Mareykanka, Yurub ayaan halkan na soo martay. Walaalayaal, dhul ballaaran waan haysanaa. Waxaan idinka codsanaynaa miisaaniyad joogto ah sababtoo ah isbitaalka daaweynta cudurrada ku dhaca dhimirka sanadka wuxuu u baahan yahay $3 milyan ugu yaraan. intaas waa soo dhabar adeegay. maanta jaa alxaqu wasaaqa albaatil ha noola dadaalo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi. 264 kartoon. kartoonkii waxaa loogu talagalay 2 bilood raashinkeed. hal bil waxaa na siiyey addoonnada rabbi ka mid ah oo noo keenay. 3 bil waan haysanaa. marka walaalayaalow ha noola dadaalo, qaar Allah siiyo. ilaahay aynu mahad celinaynaa oo deeqdan na soo gaarsiiyey. waana mahadsantihiin. waxay naga soo gaartay Gudoomiyaha Hay'adda Maareynta Musiibooyinka walaalkan Maxamuud Macalin. aad bay u mahadsan yihiin.